ururada bulshada rayidka oo gelinkii dambe ee galabta kulan ku yeeshay beledweyne ayaa iska xog waraystay xaaladihii ugu dambeeyey ee ka jira magaalada beledweyne waxaana ay ka wada hadleen sida ugu macquulsan ee ay door ugu yeelan lahaayeen ururada bulshada rayidka waxna ay si cad u sheegeen in muhiim ay tahay in la dhowro xorriyadda hadalka ayna bulshada samayn karto banaanbaxyo nabadeed iyada oo laga fogaanayo wax kasta oo qalgalgelin kara ammaanka magaalada. ururada bulshada ayaa hoosta ka xariiqay in ay u baahan yihiin sidii dadka reer hiiraan u heli lahaayeen xuquuqa ay sheegeen inay uga maqan tahay maamulka Hirshabelle oo laga bilaabo maanta wixii laga bilaabo anaga aan u istaagnay nafteena iyo maalkeena iyo aqoonteena ku bixin doono in hadda kadib aan hay'ado iyo dad kale aan naloo keenin oo anaga aan dadkeena aan isku soo dhaweeyno waxyaabaha kulankan maanta waxaan fiirnaa caqabadaha dadka bulshada waxa ka horkeenayo runtii gudiyaan sameynay waxaan ku balannay in gudiyadaas ay shaqeeyaan la joogteeyo soo idhindhayaan xaaladaha la isku soo dhaweeyo bulshada iyo maamulka Hirshabelle anaga aan u dhaxayno oo wax alla wixii caqabadaha anaga aan maaragtay xalino oo barnaamijkeena la cusleeyo oo miisaan weyn loo yeelo waxaad moodaa maaragtay in isku soo noqoshadii bay dhici ways maaragtay oo hadal barnaamij la qabsaday maaragtay la fulin waayo marka waxaan moodaa wax naga maqan waa wax maaragtay sunna ma ahan waa wax waajib wax naga maqan maaragtay guri ma baabuur iyo wax la mid naga maqno xaniyeynaa maqan laakiin waxa la rabaa wixii wax qaab leh si nabdoon si aan isla fahamsanahay si dadkeenu ay raali ka yihiin oo nidaam leh laakiin hadii nin walba dhinac ka calwiyo wax badan halaabahay waxaan rabnaa marka anaga ururada bulshada nahay kaalinteena inaan qaadano magaalada ciidamo kala joogo dhibaato in badan maaragtay dadka la soo gudboonaado inaan u tagno aan kala hadalno aan dejino hadii oo banaanbax la rabo banaanbax nabadeed oo baahsan oo qurxan inaan sameeyno inaan dadka reer hiiraan oo ayaga xataa kala dheer maaragtay inaan isku keenno maaragtay mushkilada jirta marka waa mushkilo oo culus waaye oo ogtiin xaaladda meesha ay marayso dadkuna qof iyo laba iyo wax qaba ma ahan waa wax bulshada dhan ay qabto laakiin hadii la isla fahmi waayo waxa ka imaanayo inaan waxyaalihii aan hiigsanaynay ama si wixii aan rabnay ay daahdo ama ay dhib keento 3 bilood la jooga wax noo suura galay ma lahan ayagana wax suura galay ma lahan marka waxa la rabaa waxa dhibaatada gaarayso isdilay hubka isku haystaan anagu horta inaan xabad ka dhicin magaalada inaan ka shaqeyno oo nabad aan ka shaqeyno waqtiin jaamac uu ka hadlo waxbarashadii dhibaatada laga soo maray dadka reer hiiraanka oo walaalaheena hiiraan waa dad walaale waxa moodaa in loo kala sheekeeyay waxa moodaa in joor lagu kala sheekeeyay oo la kala irdheedsiiyay oo la yiraahdo adiga adkaanad qaadatay maaragtay maxaa ka maqan hiiraan waa hal ha ogaadan horta maaragtay waxa ka maqan inay yihiin hal wax waxaan la qabaa walaalkay shik xildhibaanada qaarkood dabay ku sii shubaan wax hadda xildhibaan waxa arkay madaxweyne ku xigeenkii maaragtay ku dhagan gudoomiye gobolka ku dhagan waa intee wax ka iimaanayaan marka intee halkaas intee wax ka iimaanaysa wali waxaan aaminsanahay dadka reer hiiraan in lagu buuqayo waxaan arki jiray cali cusub lagu dhagan yahay waaro oo jawhar looga dhagan yahay waan arki jirnay laakiin alguud laaba ama axmed faar gudoomiyaha gobolka oo weligii la haysta maarka malaa'igna ma ahan oo wax way haleynayeen waxay sii karaan 100% ma dhigi karo marka waxaan rabnaa in dadkeena miiska wada hadalka keeno kulankan kulamo badan ay noogu xigaan maamulka aan u tagno madaxweyne ku xigeenka aan u tagno la hadalno aan kala hadalno maaragtay xasiloonida aan kala hadalno dadkeena maaragtay la dadkii bulshada waa wax kaacsan bulshadana aan dejino wixii wax la rabana aan si nabad aan ku dhameeyno wixii hadda ka dambeeyo waqti dambe inuu naga lumin ururada bulshadana maaragtay hawshooda aan mar walba aan badino maanta iyo biri wixii ka dambeeyo aan odayaasha u gudubno qayb kasta aan la fadhiisano bal aan bisayl aan sameeyno marka cid kasta oo markaas oo saamilayda kamid ah ama waxaan daneynayso ama kamid ah dhibaatada jirto loo kuleh inaan la fadhiisano aan maaragtay ku qancino runtii markii aan aragnay dhibaatooyinka ka socdo ayantan magaalada beledweyne muddo 3 bilood ah dhibaatooyinkaas oo inay si kordhaan moogiyo aanan lahayn hoos u dhac waxaan isla garanay inaan bulshada reer beledweyne ama reer hiiraan aan baraarujino ka shaqeyno sidii isfahan iyo maaragta walaaltinimadii iyo wada noolaashihii hore loo soo celiyo waxaan dareemaynaa
in maamulka ka jira magaalada beledweyne ay xarig ba'an u geystaan dadweynaha magaalada taasoo aanan maaragtaa haddii sal iyo raad la raadiyana aanan wax sharciyada ku fadhin dadkuna ay ayagana maaragtaa banaanbaxyo badan oo shucuurtooda ay ku muujinayaan ay dhigaan wuxuu marka haddii ay sax yihiin iyo hadday qalad yihiinbo in miiska wada hadalka la isugu yimaado arrintana maaragtaa aan yacni la yaraysan oo aan la fududaysan ayay ku wanaagsan tahay nasiib darro inkastoo madaxweynihii iyo baarlamaankii iyo dowladdii muqdisho dhan ay xilkooda uu ka dhammaaday haddana waxaan leenahay mar kastaba ayagaa noo madax ah in arrintan ka jirto hiiraan gaar ahaan beledweyne la xalliyo lagu xalliyo cid walba wixii ka maqan Soomaaliya waxay ku qaybsataa 4.5 ama 4.5 wanaag lagu raadiyo wada hadal lagu raadiyo oo aan lagu raadin bini'aadanka wax nafsadooda khatar gelin karo ama wax u dhimi karo marka annagana insha Allah waxaan sameynaynaa oo dadaal badan juhud ku bixinaynaa inaan isku keenno cid allaalo iyo ciddii wax tabanayso bulshada qaybaheeda kala duwan annagoo matalayno oo bulshada rayidka ah ee reer Hiiraan insha Allah dhibaato badan oo gobolkeena ka jirto ani ahaan fikirkaygu ma aaneenayo dhalinyarta waayo wax walba dhaqan iyo qaali leeyihiin gobolkeena waxa uu aaneynaya haddii aan ahay reer badan oo isla degnaanahay hal reer wax raadinayna ma jirto waxaas labada reer ay wax waa raadi karaan laakiin dhaqankeena inay isku tagaan ee wax raadiyaan misan la salaala dirisaan inta isla degnin la raadiyo cid macna ku tala jirto ma jirto markii runta laga hadlo hal qof in la ataaga maaha waxyaabo wax kastoo la sameeynaayo 4.5 waa 4.5 wuxuu ka dhaqaaqa dhaqanka haduu dhaqaaq waa gobolkeena dhalinyarta kama dhaqaaqdo bulshada rayidka joogto oo kala nooc qof walba xaquuq u dooda sabab qofka dhaqaaq ma jirto gabood fal badan jiray ciidamada lagu soo daadiyay markii Hirshabelle ka bacdi la doortay ciidamadii lagu soo daadiyay waxay gabood fal u geysteen macalin ahaado dhalinyaro ahaato aqoon-yahan ahaado macaan iskool jooga ahaado maamo uur leh oo gurigeeda joogta ahaato kaliya ayadoo kaas oo fikirka ay qabto oo loogu soo horjeesanayo qofkan fikirkiisa xirtul qodkiisa macnaha wax oo loo diidi karo ma laakiin waxa dhigi karta waxaan saawan waa oo biiskooda hadalka liimaa karo baahida badan oo jirto anaka dhaqankeena ka jirta dhalinyarteena ka jirta caasimada ay raadinaysiin ko hortaadi kaniga jirta hadaan nahay dhalinyarta reer Hiiraan hadaan nahay odayaasheena hadaan nahay siyaasiyiinteena intaas ma mideysnin intaasna hadaan anaka aan mideysnayn waxaad raadinaysiin ma helaysiin dadka oo wax niigu daro maanta jawhar oo kale wax lama qaybsan kartiin sababtoo ah adikii oo macnaha mid walba wuxuu ku matalaayay inaa isku imaatiin oo fariisitiin oo hadashin ma marka waxa ku boori lahay hadaa dhalinyar nahay hadaa aqoon-yahan nahay hadaa odayaal nahay hadaa siyaasiyiin nahay waxaan u baahanahay xaqiiqada gobolka ka jirta in laga hadlo dadka dharka ciidanka gashan oo u adeegsanayo bulshada rayidka oo u adeegsanaya birmikeydad in la hadlo dadka la hadli lahaayna waa aqoon-yahaniinta maanta meeshaan fadhido waxay ku hadli karaan markaas oo aad noqotid qof macnaha labada dhinacaan jirno oo tagtid midka la magaalada ku jiro oo saliig ku jiro waa in uu tagtid oo dhahdid waxaan waa ku qaldan tahay dadka dhibaatada soo gaarayso dhalinyarta waa 175 sano dhalinyarta wax dhibaatada gaaraysa anaka waay ee u tagtid midka kale oo banaanka jiro ee dhahdo wax dhibaatada gaaraysa anaka waa dagaal uma baahin adika fariisitiin oo dhahdo dhibaatada hortay haysata ay soo saameynaysa anaka waa marka anaka waxa diyaar u noqonay nin kasto imaada oo shaatiga war hagashnaade inaad daba raacno inta daba raaci lahayn hadaa maanta intaan garanay hadaa intaan shirkan laga sii weynayo kii xamar jiro oo gobolka degnaa kii dibadda jiro oo gobolka degnaa hadii meeshan loogu yeero way imaanayaan in fikirkeena laga dhageysto waxa qabna laga dhageysto ka bacad oo waxana ku nagu madalo federaalka loo waco ku Hirshabelle nagu madalo loo waco dhaqankeena loo sheego runta waayo annaga waxaan hayno waa ardaydana waxa u yar 7 jir waxaan u weyn 18 jir markii mudaharaad la maqno ee maqlaan mudaharaad ayagu waxay u yaqaanaan banadkaas oo ah in waxba kala soconin ma yaqaanaan waa dhalinyaro askarta aan haysanana waa dhalinyaro oo qoryaha wadato marka anaga nooma suuragelayso xitaa ardayda haddii loo isticmaalo xitaa mudaharaad ma yaqaanaan si mudaharaad nabdoon loo qabto iyadoo
burbur iyo nabad la'aan ay ardada ku soo barbaareen waxaan rabnaa marka in aan baaq u jeedino labada dhinacba intii wada hadal ama ka imaanaya in magaalada si nabdoon ardadan wax ku bartaan waayo xilliyo adagaana soo maray oo manhajkii soo istaagay hadday ahaan lahayd coronavirus iyo hadday dhiibaxa ahaan lahayd sanadkii ugu fiicnaa ee hadda alxamdulilah aan helnayna ma rabna in carqalado iyo mudaharaadyo iyo mid wax lagu taageerayo iyo mid wax lagu diidayaba inay waxbarashadii naga carqaladayso